number 1 midda koobaad ee haddii aad samayso canuga wax weyn ka qaban karto waxaa waaye in canugaada wixii wanaag uu sameeyo aqirto dabeecad inta wanaagsan in xunna uu leeyahay qof walba in wanaagsan uu leeyahay wax yaroo ficil wanaagsana canugaada hadduu sameeyo waxaa la rabaa inaad dhahdo thank you very much tanaad samaysa waa ku fiican tahay hawshaasi marka wuxuu ka qaadaya dhiirigelin midda labaad oo iyadana muhiimka waalidiin badan ay sameeyeen waxaa waaye in canugii aad positive role model u noqotaa qudwa xasana waxaa la dhaho inaad tusto cunugii haddii kindness inaad naxariis badan tahay inaad responsible tahay oo mas-uuliyad aad qaadi karto ha noqonin cunugaadii inaad ku riixdo wax adiga waqtigu marahayo aad rabi lahayd inaad samayso tusaale ahaan adiga qaadaa cuntaa sigaaraad cabtaa ha isku dayin marka haddii tusaale ahaan qof waalidkii baa qaad cunay sigaar cab waaye waxaana rabtaa cunugii inuu samaynin taa way adkaanaysaa sababtoo adigu wax ka arkaya cunugii adiga waalidka role model ama qudwa uu kugu dayanaya marka malihi yani inuu cunugii haddii adiga aad qaad cuntahay cunugii qaad cun noqdo laakiin role model waxaa inaan isku daynaa ilaa xad annaga inaan dabeecadeena iyo waxaan ku dhaqmayno dhaqankeena aan hagaajino si cunugina uu hagaago midda saddexaad oo laga yaabo waalidiin badan inay la yaabaan waxaa waaye in canuga aad u ogolaato caaqibada ka imaanaysa ficilada khaldan uu sameynaya aad u ogolaato tusaale ahaan canugaada school baskii u imaanaya oo qaadayay ayaa ka tegayba haddaa barta mar walba iskuulka baska uu ka tagay inaad ama taxi u karayso ama adiga gaari ku qaado iskuulka ageyso lazy iska ahanaya waqti fiican ma soo kacaya laakiin haddaad tusto hadduu baska ka tago waqti fiican soo kici waayo inuu lugeynhayo iskuulka u lugeynhayo then markaas cunuga uu ka dadaalaya arrintii xooguna saaraya marka waa in waalidku waa nogsoonay carruurta waxay isku dayeysaan inaad wixii dhibaya aad ka ilaalisaan laakiin cunugu inaa xad waa inuu mas-uuliyad qaadi karo responsible u noqon karo midda afraad ee muhiimka waxaa waaye in canugaada waqtigaas marahaya ee isbidka ah ee xaaladiisu ay culus tahay aad waqti la qaadato waqtiyada ugu muhiimsan waxaa kamid ah waqtiga cuntada la cunayo sida habeenkii oo kala badan la isku yimaado cashadoo kale waqtigaas aad ku wareysan kartaa iskuulka waqtiyada kaloo waqtiga ciidaha waqtiga fasax leeyahay waqtiyada outinka la aado iyo waqtiga kalood siin karta waa inaad time la qaadato oo cunuga xaaladiisa timeka aad la qaadanayso ayaa keenaysa marka inaad cunugii aad isku soo dhawaataan waxyaalo badan aad ka xalisaan oo saaxiibo ku noqotaan midda shanaad waa in qaanuunka guriga lagu wada jooghayo adiga asaga ama adiga iyada cunugaadaas aa isla meel dhigtaan oo aas cunugaasi uu ogaadaa in qaanuunkaas uu asagana ku leeyahay uu ra'yi iyo fikrad uu ku leeyahay markaad fikrad ahaan u sheegaysana badana waxaa waaye tusaale ahaan waqtiga habeenkii oo kale waqtiga ugu dambeyn la rabo inuu guriga imaado hadduu yahay oo kale waxaa leedahay oo kale timeka iyo timekaas tusaale ahaan waqtiga gabar waaye weekendkii oo kale mise sundaydii oo kale waxaa rabtaa inay shaqo guriga ay kaa caawiso waxaad dhahaysaa tusaale ahaan laba wax oo adiga aad rabto labadaba oo okay kule walinta ayadaa ma qadaa karinaysa mise weelashaa dhaqaysa waa tusaale ahaan adiga midkay ku samaysa midkay doorataba waa okay marka inay laakiin ay ruleska iyo qanuunka guriga lagu wada jooghayo ay fikradooda ku lahaadaan waa muhiim ay dareemaan in ayagana wax laga weydiinayo midda lixaad canuga markaad la hadlayso waqtigaa marahaya xaaladdaa marahaya waa in aad oola hadasho ama aad oola dhaqanto sidii qof saaxiib aad la tahay oo kale waalid iyo saaxiibkiis oo kale ha oola dhaqmin waalid iyo canug yar remember canugan waqtigaa marahaya wuxuu dhahaa independence uu rabaa inuu madax banaanaadu rabaa inuu fikradiisa leeyahay iyuu rabaa hadalkaadaba ma dhegeysan rabo sababta waa hormoneska iyo waqtigaas maaragta xaaladda oo jirkiisa iyo maskaxiyan marahaya waay marka waa inaad si taxadar leh aadan oola dhaqantaa oodan oga dhigin sida ooda yasin ooda canaanta iyo wixii lamidka aad ka ilaaliso sida ilmo caruur oo kale oola dhaqmin midda lixaad ama midda toddobaad aan dhaho midda toddobaad waa in aad xoogga saartaa wixii muhim ah oo waxyaalaha yaryar aan macnaha lahayn aad ku daalin cunugu noloshiisa dhan adiga waad mashquulsantahay enerjigaada iyo timekaada aad ku bixiso canuga waxyaalaha muhimka u ah oo aad ka ogaan karto ee aadan waxyaala aan macno lahayn aadan ku daalin oo aad
maaragtay wax yaroo duduma ahaan aad bur weyn ka dhigin oo wax yar oo yar aad bur weyn ka dhigin. midda sideedaad ha isku dayin canugaada comparison inaad u samayso isku daydo hebel canugiisa saasuu samaynaya waa sa adigu uu kula mid yahay waxbarashada saanuu ku fiican yahay kanuu sameeyaa adigana maxaa u samaynayni comparisonka ama inaad cunug kale aad barbar dhigto waxay ka dilaysaa kalsoonidiisa baabi'inaysaa adigii asaga isku kindiraysaa wax wanaag oo markaas dhexdiina ay ka samaynaysana malan cunugina baari kuma noqonayo. haddaad ka ilaaliso comparisonka inaad isku daydo oo aad maaragtay cunug kale aad isku daydo ka ilaali. midda sagaalaad oo muhiimka waxaa waaye canugaada wixiisa khaaska ah iyo sirtiisa khaaska ah ha baarin laakiin noloshiisa ka warqab. waxaan ka wadaa waxyaalaha hoose iyo diarigiisa iyo dhib waxyaalaha gudaha u sii gelin laakiin se noloshiisa inaad ka ilaaliso saaxiibka xun inaad ogaato saaxiibkiisa si saaxiib xun uunan oola noqonin oo muqaadaraad u bilaabin inaad waxbarashadiisa ilaa xad ka warhayso si uu aad u toosiso meeshu ka khaldan yahay laakiin waxyaalaha hoose iska ilaaliya dhexgelin. midda tobnaad waxaa waaye markii canugaada aad la hadli rabto ood la fariisanayso ood rabto arrin muhiima inaad kala hadasho ha la hadlin adoo xanaaqsan isku day waqti asagana uu degan yahay adigana aad degan tahay inaad si tartiiba u fariisataan oo one on one maaragtay aad u fariisan kartaan arrintaa oo uga hadli kartaan si haddii kale haddaad la hadasho adoo xanaaqsan ama isagoo xanaaqsan wax natiijo wanaagsan oo aad hawsha ka gaaraysaan malaha. midda last but not least ama midda ugu dambaysa waxaa waaye canugaada canaanta iyo sida ka ilaali inaad hoos u dhigto oo aad liido oo cunugaad canaato iska ilaali. saan sheegnay canugan asagaba wuxuu rabaa waqtigan asaga inuu kaa weynaado kaa madax banaanaado inuu heer gaaro caruurnimadana wuu ka tagahayaa qof weyn inuu noqdo rabaa asaga peer pressure iyo waxa ku jiraan saaxiibo badan uu ka qaadanaya saaxiibadiisu kaa jecel yahay ama ra'yigooda uu ku kalsooni qabaa kaada adigu wuxuu ku arkaaba old school inaad tahay aad waqtigan aad la jaan qaadi karin marka ha isku dayin inaad canaanato isku day inaad saaxiib soo dhawaysato ood ka dhigto la saaxiibto. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.